وعني wanaagsan idil hantiin badawadayaal ku soo dhawaada Somali TV oo hadahan oo kale aad hawada ku kulantaan dawadayaal Soomaaliya muddo ka badan 22 sano kama jirin nidaam iyo dawlad shaqeysa iyadoo qaran burburkaasi dalka ka dhacayna uu saameeyay dhinacyo badan oo nolosha bulshada ah hase ahaatee taa badalkeeda Soomaaliya waxa ay kaalin wanaagsan kaga jirtaa nidaamka isgaarsiinta iyadoo tiknoolajiyada Soomaaliya haatan laga isticmaalo ay dadka tiknoolajiyada indheeya ay sheegaan in ay meel wanaagsan Soomaaliya haatan ka marayso gaar ahaan marka laga hadlayo isgaarsiinta iyadoo wadanka ay ka shaqeeyaan shirkado badan sidoo kale waxa ay Soomaaliya kaalin wanaagsan kaga jirtaa marka laga hadlayo nidaamka lacagta la isugu diro ama habka loo yaqaano xawaaladaha Soomaaliya haatan waxa dadku ay teleefanadooda gacanta isugu diraan lacagta sidoo kale waxay adeegsadaan internetka haddaba barnaamijkeena ganacsiga ee toddobaadkan ayaan umurtaasi ku jeexi doonaa iyadoo marti inoogu yahay Ali Saciid Maxamed oo ku magac dheer Nacnac isla markaasina ka shaqeynayay muddo dheer nidaamka isgaarsiinta iyo waliba tiknoolajiyada muddo badan ku soo dhex jiray umurahaasi Ali Saciid maanta ayuu Somali TV marti inoogu yahay Ali Saciid ku soo dhaweynaya wad maasanta Maxamed ugu horeyn nidaamka marka laga hadlayo de Soomaaliya sidaan horeyba u sheegayba muddo ka badan 22 sano wadan burbursan baa ahaa qaran iyo dawlad dhexe midna kama jirinin bal si guud horta marka ugu horeysa hadaynu kaga hadalno nidaamka isgaarsiinta Soomaaliya iyo waliba tiknoolajiyada gaar ahaan marka laga hadlayo nidaamka lacagaha la isugu diro tiknoolajiyada maxaa lagu macneyn karaa maxamed saal la socotay Soomaaliya saad introduction ka aad ku sheegtay 22 sano waxyaalo badan baa isbedelay ama waxyaalo burbur badan baa dalka ku dhacay haddaan ka fiirno dhinaca telecommunication ka marka ugu horeysa waxay soo bilaabatay Soomaaliya marka ugu horeysa foonaya baa laga soo bilaabay telecommunication ka kadibna waxaa la aaday telefoonada yaryar ee gacanta lagu qaato emerset-ka la yiraahdo ayaa la isticmaali jiray marka ugu horeysa intaana la bilaabin telecom rasmi ah oo shirkad ugu horeysay Soomaaliya ka bilaabatay dhinaca Puntland waxay ahayd Netco shirkad la yiraahdo dhinaca maaragtay xamarna waxay ahayd shirkadaha sida maaragtay Nation Link iyo Hormuud oo kale shirkadahaas inta si tartiib ah ay ku bilowdeen shirkadaas waxa kale ku jirta shirkad aad u weyn oo la oran jiray STG oo hadda iyadana ka maqan tahay meesha waxa markaas iyadana soo baxday shirkada sida Golis la yiraahdo shirkadaha hadda waxa soo baxday Somtel waxa jirta Telesom waxa jirta Hormuud marka shirkadaha aad bay u badan yihiin waxaad moodaa marka in runtii 20 sano la soo dhaafay ilaa iyo maaragtay marka laga soo bilaabo fooneeyo ilaa iyo maanta 3G isticmaalaysa Soomaaliya ee telecomkeeda fursadaasi waxaad moodaa hadda Soomaaliya inay aad ugu baahayso adoo hadda waxaad madax ka tahay ama aad madaxdeeda ka mid tahay mid ka mid ah shirkadaha xawaaladaha ee Soomaaliya ka jira gaar ahaan Tawakkal Soomaaliya waxa laga hirgeliyay hadda oo shaqeynaya nidaamka loo yaqaan e-cash-ka ama e-money-ga waxa la yiraahdo oo internetka iyo telefoonada dadku ay lacagaha isugu diraan nidaamkaasi habka hadda Soomaaliya uu uga shaqeeyo maxaa ku tilmaami kartaa horta shirkadda Tawakkal Money Express la yiraahdo waxay aad iyadana soo martay marxalada noocaas oo kale ah sida hadda telecomka u soo mareen oo kale xawaaladaha sida la socotay marka hore waxay ku bilaabeen iyagana inay fax wax ku diraan email wax ku diraan kadibna waxay sameysteen database yar ee markaas wax ku sameystaan database markii ay ka gudbeen waxay sameysteen wax la yiraahdo web application oo qof walba inta xafiiska xawaalada joogo meel walba uga diri kara lacagta markiiba oo qofka kale ku ogaan karo maanta shirkadda Tawakkal waxa ay ku guuleysatay in ay noqoto shirkadda ugu horeysay ee maanta Soomaaliya ka jirto ee la shaqeysa ama la hana qaada telecomka oo markaas ay lacagta halkan ka dirtid isla markiiba qofka aad ugu diri kartid telefoonkiisa ama handset-ka oo haysto oo markiiba u gudbin karo lacagtii sida maaragtay ku wax la yiraahdo sahalka oo kale ka jira dhinaca sida Somaliland ama sida dhinacyada kale Puntland Somaliland iyo Puntland labadaba ay ka jiraan marka shirkadda Tawakkal waxay ku guuleysatay in ay noqoto shirkadii ugu horeysay
oo markaa la hana qaata telecomka iyagoo markaa isticmaalaya teknolojiyada ugu dambeysay markaa jirto say isugu xirayaad habka taleefanka lacagta loogu dirayo oo tusaale ahaan qofka Soomaaliya jooga in lacagta loogu dirayo taleefankiisa gacanta ee uu ku hadlayay maxaa la sameynaya tilaabada la qaadaya maxay tahay tilaabooyin dhowr jeer baa la qaadaya qofka laba nooc weeye qofka haddii dalka gudihiisa uu joogo markaas waxa weeye wuxuu tegayaa xawaalaan shirkadaha markaa ka jira telecomka ah oo markaas uu kaga shubanaya lacagta laakiin dadka iyaga dibadda jooga haddeertaan oo kale oo ama Mareykan jooga ama Europe ama Australia meesha rabna aan joogno qofku wuxuu sameysanayaa shirkadda xawaalada wuxuu tegayaa website-keeda la yiraahdo www.etawakkal.com website-ka markuu tago wuxuu sameynayaa wuxuu ka furanayaa account isagoo gurigiisa jooga ama xafiiskiisa joogo ayuu account ka furanayaa account-ka markii uu furto account-ka wuxuu leeyahay shuruudo badan shuruudaha markii uu qofka u kaafiyo account-kaasito waxa uu sameysanayaa lacagtii ayuu markaas dhiganayaa shirkadda xawaalada Tawakkal tusaale oo kale $200 baa dhigatay account-ka marka lagu furo account-ka marka $200 dhigatay waxaad tegaysaa shirkadda username iyo password bay ku siinaysaa markaas baad gelaysaa xawaaladii markii aad gudaha gashid oo Tawakkal gudaheeda aad gashid waxaad xor u noqonaysaa lacagtaadii goor walba meel walba inaad u dirtid sida adiga ku diray telecomka ama telefoonka kale ama si qofka meel kasta uu joogo aad ugu diri kartid waqtiga rabtid ama 24 hoursna ay ku diyaartahay lacagtaada aad isticmaali karaysid taasi waa dariiq la marayay markaad doonaysid inaad lacag dirtid faa'iidada aad u aragteen markaad barnaamijkan ugu horeysay oo aad hirgelinayseen inay ku jirto maxay tahay ama qofka qurbaha jooga ha ahaado ama qofka gudaha wadanka jooga lacagta loo diray ha ahaado sax way maxamed sidaa la socotay qurbaha marka aan joogno waxyaalo badan baa jira qofka waxa dhici kara inuu mashquul noqdo waxa jira for example Minnesota maanta joognaa waad la socotaa banaanka sida qabowgeeda tahay marka ma doonaysid inaad meelaha qaarkood aad tagtid baraf baa jira parking baa jira qofka waxa dhici kara inuu maaragtay isagoo truck saaran dadka iyaga badanaa waa darawalo truck isagoo saaran ama taxi isagoo wado jirto marka shuruudaha macnaha waxa soo dhan waxa qofka ku kalifi jiray inuu ka baxo oo uu tago xafiiskii xawaalada ama goobtii xawaalada lacagta laga diray oo markaas heeto lacagta si physical ah uu u geeyo meesha marka shirkadda xawaalada Tawakkal wuxuu ku guuleysatay in la yiraahdo bal dadkan macaamiishayada say ugu sahlanaa markaas heeto qofka markii uu furto account-ka waxa soo dhan uu ka baxaya gurigiisa isagoo joogo ayuu lacagta u diraya hooyadiis anywhere aan Soomaaliya joogto ama anywhere Africa joogto oo dadka lacagta u diri jiray marka waxaan u fududeynay dadka in ay si sahlan lacagta ugu dirsadaan dadka ama meesha ay lacagta u dirayeen ama ha ugu diraysi telefoon ama si qofka physical lacagti ha u soo qaato xawaalada ha u tago iyay faa'iido ugu jirtaa baad islaada marka barnaamijkan السلام عليكم هويا ساتهي هوي لعدك ما نهلم اوكي هوي سقبل هوي لعدك ما انا ادرن مايا لعقتي ما ندرين عيب الله استرو شنطقي كبعد ندرها لعقتي سان ادرها حدا لي قربايا ميادا كور قبل اي توكل واديك اكدرسن كرت لعقه هذا اديق او ميل ولي جوجو اي توكل وما باهنو inaad booqato xafiis waxaad ka tirsan kartaa kombiyuutarkaada ama taleefankaada meel waliba aad joogto sida Alaska, Africa, Europe ama Asia isticmaal e توكل oo booqo etawakkal.com Tawakkal Money Express ku dirso lacagahaaga habka cusub ee e-Tawakkal waqti walba meel walba iyo xaalad waliba shaqada joog safar ku jir ama gurigaaga ka dirsan lacagahaaga u dhiibo amaanadaada Tawakkal Bank of Somalia isticmaal Tawakkal Mobile Money sahal and saad hadda u dhiibo hadda ha bixisee hadal la'aan Tawakkal Money Express fast secure and reliable Thank you Tawakkal Money Express qof walba oo doonayo inuu ka faa'iideysto aaladda tiknoolajiyada ah isagoo u marinaya lacagaha dhinaca sita tiknoolajiyada ah dad baa jira aanan wali waxaas diyaar u ahayn oo sida maaragtay aanan internetka dhibayo ama kombiyuutarada dhibayo taas waan la soconnaa taasna waxay maranayaan sida traditionka ah xafiisyada ay tegayaan markaas sito laakiin dadka faa'iidada runta aad ugu jirto waxa kamid ah
dadka maaragtay professionka ah ama businessyada leh dadka maaragtay NGO-yada leh oo markaas haddii qofka NGO uu leeyahay kale oo mushaar badan uu bixiyo haddii qofka uu leeyahay maaragtay uu xafiis ka shaqeeyo kale truck driver hadduu yahay qofka taksiile hadduu yahay dad badan oo markaas ku xiran internetka ama isticmaala internetka ay aad ugu fududeynaysaa inuu markaas isticmaalo systemkeeda dadka kale u fududeynaysa waxaa kamid ah tusaale waxaan kaaga soo qaadayaa qofka haddii uu xaaskiisa oo kale jooga Soomaaliya tusaale hooyada waxay joogtaa maanta Garowe oo kale $5 waxa ku iibsataa telefoon maalin kasta $5 telefoon marka halkan ku iibsatid imisa minada ku siinaysaa ugu badnaan 20 daqiiqo ku siinaysaa nacam Soomaaliya marka telefoonka laga soo diray oo ka jaban yahay dollar baa ugu shubaysaa qofka hooyada telefoonkeeda adoo meeshan joogo xawaalad account uga furtay dollar baa ugu shubaysaa dollarkii marka 20 daqiiqo adiga ayuu kula hadlaya ilaa 15 daqiiqo 20 daqiiqo kula hadlaya marka meeshaas maxay ku siinaysaa $5 aad ugu shubto qofka 100 daqiiqo ayuu ku siinaya telefoonka meesha adiga 20 daqiiqo aad kula hadli jirtay macnaheedu taasna waxa weeye faa'iidooyin badan oo dadka Soomaalida ay u soo taabisay dhinaca telecomka iyo maaragtay xawaalada Tawakkal cali inkasta oo aan ogahay inaad tartan ku jirtaan oo ama shirkadaha isgaarsiinta haata ama kuwa xawaaladu ha ahaadaan tartan ay ku jiraan wadan burbursan oo dhibaato intaasi ay ka jirtay ma sahlana barnaamij caynkaas in laga hirgeliyo maxaa idin fududeeyay baad is leedahay inaad barnaamijkan aad hirgelisaan maxamed barnaamijka runtii horta barnaamij aad iyo aad maaragtay u dheer buu ahaa ilaa iyo 2 sano bay ku qaadatay shirkadda Tawakkal Money Express iyo shirkadaha telecomka oo aan la shaqeyno mana ahayn barnaamij aad u fudud sababtoo ah dad badan oo teknolojiyada oo inta badan ay Soomaali tahay oo expert ay ku noqdeen dhinaca teknolojiyada ayaa hirgeliyay barnaamijkan aniga kula hadlayo kale waxay ugu qaadatay ilaa iyo dhowr trip inaan macnaha dalkii tago oo aan markaa soo noqono oo aan tababar dadkii u subino not only dadka in tababar markuu ugu horeyso waxa la yiraahdaa Ingiriis waxa lagu yiraahdaa charity starts from home dadka waa in adiga ka bilaawdo horta dadka sadaqada guriga ka bilaawata waa inaad marka ugu horeyso horta dadka ku shaqeynaya aad ka fahamsiisaa waxaan waxay yihiin iyo sida dadku uga faa'iideysan karaan tusaale hadan ku soo qaado shirkadda Tawakkal waxay ku guuleysatay in aan isugu keenno dhammaan dadka Tawakkal u shaqeeyo dhan inaan Garowe isugu keenno sanadka 2010 oo aan barno waxa la yiraahdo maaragtay compliance-ga for example sida American Money Laundering Compliance-ga iyo BSA wax la yiraahdo si loo tababaro markaas shuruucda adduunka loo waafajiyo markaas dadkii markii inta aan tababarnay ayaa markaas waxaan ku guuleysanay labadii system oo telecomkii iyo systemkii xawaalada inaan iswaafajino oo markaas ay isla hana qaadaan oo shirkadda markaas ay ku hirgashay haddana waxa si fiican u shaqeynaysaa etawakkal.com waa mid hirgashay oo si fiican u shaqeynayso qof walbana u furan karo ku gartay ammaanka marka laga hadlayo wuxuu waa lacagna de gacan ammaan waa inay ku jirtaa laba isma weydiinayso qof kasta oo doonaya inuu Soomaaliya lacag u dirana kula waa fursad uu heli karo saa sheegtay laba haddaan u kala qaadno nidaamka dawliga ah iyo tan idinku aad wax ku ilaalisaanba intee buu leeyahay xadka ammaan ee lacagtan telefoonka la isugu diray marka ugu horeyso horta dhinaca marka waxa ugu horeeya aan fiirinayno waxa weeye dhinaca shuruucda inaan waafajino wax walba aan sameynayno dhinaca shuruucda nidaamka dawliga inaan waafajino meel walba aan ka jirno ama Yurub ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaato ama Mareykanka hadda aan joogno ha ahaato shuruucdaas ee shirkadaha xawaaladaha waxa qabta shuruuc badan oo wadanka ay ka shaqeynayaan markaas for example Europe oo kale European Union shuruucda leh in la waafajiyo way Mareykan kale AML wax la yiraahdaa jira oo waafajinaya shuruucdaas inta waan waafajina dadka iyagana shaqaalahana aad baa loo tababaray shuruucdaas taa markaan ka gudubno system wise security system wise marka la yiraahdo shirkadda Tawakkal waxa ay adeegsanaysaa systemka ugu sareeya markaas oo la yiraahdo 256 maaragtay encryption oo la yiraahdo oo markaas security-geeda aad u sareeyo oo maanta ah midka ugu sareeya dunida sida bangiyada oo kale ay isticmaasho sidoo kalena markay telecomkan iyo noocaas oo kale ay isticmaashaa qofka binaadan waxa jira security badan oo dhaafayo marka uu furto account-ka dhowr su'aalo la weydiinayo isaga kaligiis garanayo si markaas oo qof kale wixiisa u helin waxaas oo dhan anagoo fiirinayno ayaa mar walba waxaan isku taxallujinaa security-ga meesha ugu sareeyo ama se maaragtay nidaamka meesha ugu sareeyo inaan marsiino taa waxa ku dhaafsiisan qofku wuxuu helayaa history-giisii macnaha lacag intuu dhigtay intuu dirsaday iyo meesha u dirsaday intoo dhanbo history iyadoo ayuu helayaa markaas ama ha ahaato shirkadda xawaalada Tawakkal ama se ha ahaato telecomku isticmaalayay oo shirkadaha aan la heshiin annaga telecomka ah waxay leeyihiin xarumo aad u badan bay leeyihiin
qofka telefonkiisu tegi karaa wuxuu oran karaa numberkaas mid ma lacagta u diray haddii qalad ay lacagta ugu diray ama se haddii lacag ay ka maqan tahay meesha ayuu tegi karaa uu markaas kala xaajoon karaa marka dhinacaas aad baa looga adkeeyey waad fududayseen oo telefonkii qofkii asoo gurigiisa jooga in lacagtii loogu soo diro ay ugu soo dhacdo kii dirayana asoo gurigiisa jooga lacagtii uu diro ayaad fududayseen taasi shaqaalihiina iyo xafiisyadii aad gobolada iyo deegaanada Soomaaliya ama aad ka shaqeysaan aad kula haydeen ma yareynaysaa maya ma yareynayso waxa weeye inay weli badisa ay u badan tahay sababta u yareynayna waxay tahay qofka dadka intooda badan waxa laga yaabaa qofka lacagtiisii markaad $100 u dirtid inuu $50 uu ku reebto telefoonka $50 uu doonayo cash inuu haysto marka cash uu doonayo waa inuu qofka tagaa xawaaladii uu markaas cash ka soo qaata mid kale is u badanayso waxa kamid ah qofka markuu dhiganayo systemka kala lacag waa inuu meel physical tagaa oo lacagtii geeya meel physical ah dadka dibadda joogo kale waxaan ugu talagalnay in si account-kooda lacagtii looga wareejiyo tusaale adiga damaad account ka furatid systemka tawakkal aad tagtid qasama xafiiska tawakkal inaad tagtid account-kii oo Wells Fargo aad ku leedahay ama aad ku leedahay US Bank ayaa ka soo wareejin kartaa lacagtii aad ugu soo wareejin kartaa markaas tawakkal marka ma yareynaysa marna inay badiso moogiyo sababtoo dadka intooda badan physical lacagta inay taabtaan bay jecel yihiin marka mar walba taasna way jiraysaa waxaan inkastoo waqti hore ay Soomaaliya ugu dambeysay haddana warbaahinta kale markaad fiirisid ama dhinaca telefishinada haato ama qoraalada laga sameeyo xataa research laga sameeyay barnaamijkan ayaa jira oo jaamacadaha dunida mid kamid ah ay ku sameysay dad waxaan la arkayaa ama aad arkaysaa sida adiguba ka dhawaajisayba barnaamijkan e-cashka ama money transferka telefoonada lagu sameynayo e-moneyga isticmaalaya maqaayadii wax kaga gadanaya ama wax ku kala iibsanaya wax isdhaafsanaya kobaca dhaqaalaha halkee bay kaga jirtaa Soomaaliya waxaan ognahay hadda inay meel hoose ka soo kacayso oo soo kabasha ay bilowday horta magac waxaan marka la yiraahdo mobile money ama e-cashka marka la yiraahdo waa wax runtii horumar inuu u keeno dalka ma ogiya aan wax badan markaas ka dhimaynin tusaale haddaan kaaga soo qaado $100 markay aad dirtid oo kale oo aad u dirtid qof Soomaali jooga $100 u dirtid $100 aad ugu dirtid qofka telefoonka waxay u faa'iideynaysaa waxyaalo badan qofka gurigiisa isagoo joogo ayuu wuxuu dalban karaa adeegyo badan ama waxa meesha aan ka iraan halkan aan ka niraahna delivery oo kale ayaa hadda Soomaaliya ka bilowday qofkii suuqi ay wuxuu dirsanayaa caanihii waxa laga yaabaa inuu qofka markaas wehel ama qof adeega guriga usan u joogin hilbihiiba u dirsanayaa marka dad badan baa markaas inta qofka alaabta keenayo qofka alaabta laga iibsanayo wixii oo dhan ba hadda telefoon baa lagu iibsadaa tawakkal waxyaalaha ay fududeynayso waxa kamid ah midda in isku xirkaas dadka dibadda joogay iyo dadkii gudaha joogay marka in si u sahlayso midda kale inta dhaafsiisan Soomaaliya kaliya ma ahan waxa dhici kara qofka inuu joogo meel kale oo xawaalad jirta markaas ama se saddex habeenimo qofku soo waco kale ku yiraahdo lacag baan joogaa maanta Tanzania ama South Africa joogaa lacag ii soo dir waxa laga yaabaa inay maanta khamiis tahay jumcada maalmaha xawaalada badan dhinaca sida ma shaqeeyaan isla markiiba lacagtu waxa u diri kartaa aad guriga inta internetka gashid ayaa lacagta ka diri kartaa waxyaalaha kale tawakkal ugu faa'iideynaysa taas ayaa kamid ah not only mobile money laakiin waxa ku siinaysaa 100% in access u heshid lacagtii adiga aad leedahay marka rabtid waqti walba meel walba ugu diri kartid telefoonada shirkadaha telefoonada ee Soomaaliya ka jiraan iraahdo aad bay waa badan yihiin ilaa dhowr shirkadood baa ka jirta barnaamijkan marka shirkadaha dhan oo Soomaalida gudaha joogtaan qof walba shirkadii markaas telefoon wadanka ka jirta laga yaabaa inuu ku leeyahay qof inuu saa sheegtay hormuud ku leeyahay qof uu Telecom Soomaaliya ku leeyahay qof shirkad inuu ku leeyahay shirkad walba oo isgaarsiineed oo Soomaaliya ka jirta barnaamijkan uu ku shaqeynaya marka shirkada gaar ah annaga hadda waxaan la heshiinay waxa weeye shirkada gaar ah ayaan la shaqeynaa laakiin se ma aha shirkada gaar ah waxa inuu kooban yahay oo shirkadaha badana Soomaalida way adeegan shirkado kale ayaa bixiya waa suurtagal xawaaladaha qaarkoodna inay hadartaan sameysteen ama si ay gudaha ku jiraan inay sameystaan martay laakiin waa meesha mustaqbalka hadda u socdo oo qof walba raba inuu dhinacaas ka aado shirkada xawaalada tawakkal waxay nasiib u yeelatay inay noqoto mid ugu horeysa markaas hirgelisay barnaamijkan hadda Soomaalidu ilaa heer inta lag bay fahmayaan baad islada barnaamijkan isticmaalkiisa maxamed waa su'aal horta aad u fiican Soomaalida horta runtii marka la yiraahdo technology-ga tusaale hadan kaaga soo qaado sanadka 2000 Minneapolis waxaan ka bilaabnay barnaamij la yiraahdo Somali Yellow Page oo laga dhageysto wararka telefoonka laga dhageysto markaan barnaamijka aniga bilaabay dadku waxay oran jireen war caaliniyo hadda ma dadka rabta inaad telefoonka dhahdo waxba ka dhageysanaysaa runtii waxaan tusnay dadka in ay suuragal tahay wax walba marka dadka aad tustid inay isticmaalayaan Mareykanka waa aragto waxa la yiraahdo build they will come wixii dhis dadka iyaga isticmaalaya markaas systemka wuu jira hadartaan Telecomka Soomaaliya hadartaan
waa mid aad mature noqday oo runtii si fiican meel u hagaagay xawaaladaha Soomaalida waa sida labadaba waa mature bay noqdeen platformkii hadda waa dhisan yahay isticmaalkiisana hadda Soomaaliya runtii aad baa loo isticmaalaa tusaale hadan kaga soo qaado qofka kabaha baalusho oo kale qaarkood hadda waxay haystaan telefoon kabaha markuu ka baalusho wuxuu ku leeyahay cash ma haya markaad tiraahdo wuxuu ku leeyahay igu soo shub lacagta sahalkayga igu soo shub marka sahalkiisa ugu shubaysaa lacagta sahalka waa systemka la isticmaalaya markaas marka waa isticmaal aad iyo aad hadda Soomaalida aad ugu horumartay weey waa sheeko xiiso leh qurbaha oo kale marka laga hadlayo dadku inay lacag cash jeefka ku qaataan ma sahlana oo qof walba credit card debit card karar baa la wada sitaa oo qof walba account iyo xisaabaad buu banki ku leeyahay arintaas dadkan qurbaha jooga laftirkooda ku xiran Soomaaliya lacagaha diraya see ugu fududeysan idin ma qofku ma cash buu idin keenaya ma account-kiisi oo bankiga ku lahaa iyo kii oo furtay baad isku xiraysaan taa ka waranayad maxamed labadaba qofka hadii uu doonayo cash uu noo keeni karaa shirkadda xawaalad Tawakkal waxay leedahay ilaa iyo 300 oo maaragtay agency wax ka badan dunida ku leedahay Mareykanka kale ilaa 9 state bay ka shaqeysaa iyo state badan oo hadda sida California, New York, Pennsylvania state badan oo xawaalada Soomaaliya aan joogno ka shaqeysaa intaba uu geen karaa qofka lacagta cash uu geen karaa oo wuxuu oran karaa Tawakkalkayga la igu shubo oo markaas lacagtu isticmaali karaa haddii uu doonayo account-kiisa ayuu si direct ah markii uu account-ka ka sameystay Tawakkal oo direct labada account iyo Tawakkal iswaafajinaya taasna uu sameyn karaa iyadana waa suurtagal qofkii doonaya inuu hadda barnaamijkaas awal laga yaabo inuu xawaaladin imaan jiray ama xawaalad kala tagi jiray lacagta geyn jiray oo barafkaas iyo rafaadkaasi faraha badan ay ka sheekeysay soo mar jiray inuu $100 u diro qof familigiisa iyo gudaha Soomaaliya ku dhaqan ama meel wadankan ka baxsan tilabada ugu horeysa ee aad oran lahayd inuu qaado taas baa u sahlan maxay tahay talaabada ugu horeysa waa inuu tagaa shirkadda xawaalada etawakkal.com waxa way www.etawakkal.com buu tagayaa dhinaca midigta ah wuxuu arkayaa maaragtay new registration form ah formkaas buu buuxinayaa username iyo account buu sameysanayaa kadib markuu intaas sameysto codsigiisiiba annaga noo imaanaya codsigii markuu noo imaado shuruudo badan oo wadanka sharciga ah ayaa waafajinayna qofka markii waxa kamid ah for example aqoonsigiisa kale waa inuu qofka helnaa aqoonsigiisa qofku waxa uu yahay aqoonsigiisa markaan helno kadib systemka aan galino email baa u imaanaysa emailkaas baa waxay siinaysaa wixii wacyigelina u baahan yahay iyo ama shuruudaha markaas uu sameynayo emailkaas kadib waxa u imaanaya username iyo passwordkiisa uu sameystay asaga kadibna laxuu bilaabayaa systemka inuu isticmaalo si direct ah iyadoo YouTube aan waan sameynay oo sida www.youtube/etawakkal baa jirta oo step by step markaas sidoo qofku u suubin lahaa uu ka daawan karayo علي marka laga hadlayo waxaan ogeyn xawaaladaha wadankan hadda Mareykanka ku yaala ee Soomaalida muddooyinka ugu dambeeyay dhibaatooyin fara badan oo dhinaca shuruucda iyo inay wadanka ka shaqeyn karaan caqabado fara badan baa soo wajahay arintaas ayada maxay ku dambeysay bangiyada qaarkood waxaan ogeyn inay ku dhawaaqeen inay xawaaladaha Soomaalida la shaqeeyaan guud ahaanba inay joojiyaan maxamed warun dhibaatadaas way jirtay oo ilaa haddana wali si fiican meel looma saarin hase yeeshee waxaa jira maaragtay juhdi aad iyo aad u badan oo shirkadaha xawaaladaha ay geliyeen oo markaas dad badan oo maaragtay la adeegsadeen maaragtay sida senatarada iyo maaragtay dad badan oo Soomaali professional naftirkooda ay ku jiraan ay aad u caawinayeen bangiyada wali way jiraan bangiyo yaryar oo iska isticmaalo xawaaladaha ay way jirtaan tusaalahan hadan kaga soo qaado shirkadda xawaalada ah macnaha waxay sameysay one step further bay sameysay oo dalkiiba tagtay oo maaragtay waxay tababartay dhammaan maaragtay xafiisyadeeda oo dhan meel bay isugu keentay tababaro badan bay fidisay oo tababarada inta macnaha qofka inta jooga tababarada uu qaato oo maaragtay American money laundering la yiraahdo mid lamida ayaa dadka xagga la siiyay oo shahaadooyin baa la guddoonsiiyay sidoo kalena intana waxaa jira sanad walba xawaaladaha waxay maraan maaragtay wax auditing la yiraahdo oo maaragtay dad professional bay maraan tababaro badan baa jira marka waxay aad dadaal ugu jiraan shirkadaha xawaaladaha inay shuruucda ka jirta dalka ee mar walba ay la socdaan ayna tababaraan dadkooda markaas inta jiro shaqadaas Soomaaliya jooga maxaa la barayaa markii qofka halkan Soomaaliya jooga waxyaalaha system buuxa oo dawladnimo hadda jiro oo adag oo lacagaha la diray ka yaala habka shaqada ee money transfer waxa la yiraahdo u yaala Soomaaliya qofka jooga maxaa la barayaa isaga maxaad barayseen
Soomaaliya waxyaalaha la barayo waxa weeye systemka adduunka sida looga shaqeeyo oo kale bangiyada adduunka sida u shaqeeyaan oo kale shuruucda adduunka sida u shaqeeyaan sababta hadduusan fahamsaneen qofka isaga la shaqeynayo dhibka iyo juhdiga iyo shuruucda uu marayo hadduusan fahamsaneen qofkaas waxa laga yaabaa in cabashadiisa aad u badato mar walba oo cabashooyin badan soo diro marka qofkaas xagga joogo waxaan barnaa wax la yiraahdo know your customer oo aad iyo aad muhiim u ah iyo shuruucda dibadda sida ay markaas iyaga u qaban kara oo kale aad baan iyaga markaas wacyigelin ugu soo binaa shahaadooyin waan siinaa runtii oo tababaro badan ayaa loo sameeyaa iyagana xawaaladaha oo dhanna way suubiyaan runtii arrintaanitu ugu dambeyn maxay tahay marka qorshaha marka laga hadlayo isgaarsiinta iyo lacagaha la isku diro ee Soomaaliya aad isleedahay Soomaalidu meesha hadda ay joogto meesha joogto meel ka sishayso ay higsanaysaa jirta waa su'aal ugu fiican runtii Soomaaliya maanta dawlad baan dhalatay alxamdulillah dawlad fiican baan noo dhalatay waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid maaragtay dalka sidii la rooniyay maaragtay ugu soo rogto shuruucdii iyo hanaankii dawladnimo waxaan tusaale kaaga soo qaadayaa kale Soomaaliya sanadkan gudihiisa ama dhamaadkiisa waxa bilaabmaya waxa la yiraahdo broadband ama se waxa la gaarsiinayaa internetkii cable-ka ah oo badda la marsiinayay oo heshiisidiisa way dhamaadeen isbedel aad iyo aad u badan ayaa markaas Soomaaliya dhinaca teknolojiyada ka imaanaya tusaale hadan kaaga soo qaado jaamacadan la shaqeyno kale waxa jirta ku taal Boosaaso University of Boosaaso ardayda dhigato maanta waxay qaataan Cisco networking certification bay qaataan soo qofka xagga jooga markuu Cisco qaato ama .net-ka uu barto waxa suurtagal ah in mustaqbalka in isagoo wadankiisa joogo sida wadamada maaragtay India ama Philippines ama wadamada u joogo inuu u shaqeeyo shirkado dibadda jooga haddii uu aqoontu leeyahay marka teknolojiyada waxay faa'iido badan u keenaysaa mustaqbalka dhalinyarada Soomaalida ee wax barata maanta oo dhinaca teknolojiga ah waxaan isku dayaynaa marka inaan ka dhadhacsino dhalinyarada Soomaalida ah war adigoo dalkaaga joogo haddaad wax baratid baad nolol fiican sameyn kartaa qasab maaha inaad qurbo mar walba u soo carartid marka dhinacaas waxaan rajaynaynaa iyadana inay naga caawinto dhinaca teknolojiyada oo shirkadaha telecomkana ay aad markaan ugu xoogan yihiin mahadsanid cali guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa toddobaadkan barnaamijkeena oo aan ku soo qaadanay 21 sano in ka badan oo ay Soomaaliya burbur iyo rafaadi ka jiray iyo horumarka dhinaca teknolojiyada iyo isku gudbinta lacagaha halka ay haatan marayaan oo aan toddobaadkan marti inoogu ahaa Cali Saciid Maxamed oo ku magac dheer Nacnac in badan ka shaqeynayay isgaarsiinta iyo waliba teknolojiyada madaxna ka ama kamid ah madaxda xawaalada Tawakkal Express oo saldhigeedu yahay wadankan Mareykanka guud ahaan daawadayaal barnaamijka intaas ayaan ku soo afmeeraynaa farsamadii iyo qaabayntii Siyaad Saciid Saalax anigoo Talyaaniga halkan ayaa idin kala socodsiinay intaan mar kale kulmi doono bahdii Soomaali TV oo idile ismaqal iyo isarag dambe oo xiiso leh